وايد السلام من مانتين مقعق ويام حق دق داونسنا ويام يوتيوب مانتا بنانكا يا جوجا فير سيده قروح بدنتا عرق بلوغ عرقانو بلوغ ارق غورمي ugu dambeysay waqti hore 6 bil 8 bil meelaha ma la arkin okay maanta fiidiyogeenu waxa ku saabsan yahay saddex shay muhiim ah waa inaan rabo inaan ka waani dadka kanaalkayga ku xiran dadka kanaalkayga ku xiran inta badan waxay yihiin dhalinyaro ka hooseysa 30ka so saddex shay ayaa ku sheegaya maanta saddexdan shay waa inaad iska ilaalisaa wax kaftan ma saddexdan shay waxa laga yaabaa noloshaada inay halis geliyaan wax aadan ka soo kabsan karin muddo dheer kugu qaadan doonto inay noqdaan so midda koowaad waxa waaye credit wax credit laha isku qaadanin credit dadana aqoon ana ku sheegay credit waxa waaye kaar laga soo qaato bangiyada si online ama inaad tagtid adiga bangiga aad ka soo qaadatid kaarkaas lacag ayaa ku jirta lacagtaasi to haddii waad isticmaali kartaa inkastoo ranta ay ku jirto rantana waa ogtaa qofka muslimka xaraan ay ka tahay ka soo qaad kaar ayaa soo qaadatay lacag ayaa u baahnid okay kaarka markaa soo qaadatid lacagta ay ku jirto waxa lagu dhahayaa muddo hebel waa inaad soo celisaa lacag markaa saxiixid ama warqada lagu soo diraa waxa lagu dhahaa rantada 15% waay ama 70% waay rantada lacagta ku saaran adina waxa laga yaabaa inay tahay $1 lacagta kala baxda bangiga so ku dhufso marka 70% rantada ku saaran lacagta aad isticmaasho muddo hadda ku soo celi weysa rantada way dhaqaaqaysaa krediidyada qaarkooda waxa la socota ranta lahaay ranta dhaqdhaqaaqda rantada soo la socota ama ku xiran suuqa maalinta inta uu yahay haddii shalay $1 uu ahay $1 maanta uu qalmo lacagta aad qaadatay $1 iyo boqol ama yani suuqa sidoo suuqaya ay ku xiran tahay soo iska ilaali mar walba inaad credit qaadatid credit ha isku qaadanin credit wax fiican maana haddii kale noloshaada waxa laga yaabaa lacagta inaad dhibsatid bixinteeda kadibna aad shirkadda u noqotid adoon oo waxa laga yaabaa bil walba marka aad shaqaysid laba meelood ama hal meel mushaarkaaga inaad u dirtid shirkad credit ah hadda goor qaadatid dartiisa lambarka labaad waxa weeye iska ilaali inaad gasho heshiis aadan ogeyn wuxuu yahay ama waxa uu ku qoran warqada ha saxiixin heshiis aadan fahansaneen ama wuxuu yahay tusaale ahaan dhakhtar ayaa ku yeeray waxa lagu dhahay faarax dhakhtarkii ma maanta warqada saxiixisa ma ogid warqada waxa ku qoran ama heshiiska waxay tahay waa iska saxiixday maxaa ka ogtaa lagu dhahay haddii aad dhimatid maxaa la meedkaaga dhakhtarka ayaa qaadana ama maxaa iskale jaamacad hebel ma garanaysid sax ha isku saxiixin heshiis aadan fahmin ama warqad aadan fahmin macnaheeda wax ku qoran qoraal ha ku qorin saxiixin haddii aad fahmi weysid no iska tag ama ku dheh tarjumaan igu waa inaa fahmaa waxa aad saxiixayo waxa ay yihiin moogid adiga laakiin ha isku saxiixin weligaa warqadaadan fahmin waxa ay tahay xitaa af Soomaali haddii tahay warqada akhri haddaadan akhri karin luqad aad akhri karin aad qoran tahay qof igu yeer kule waxaan ifahansiiyo ama iga dhaadhiciyo waxaan waxa ay tahay kan labaad waa fahanto Soomaan kan saddexaad aqoonsigaaga aad leedahay dalka hadda joogto ama qurbaha haddii aad joogto qofna ha amaahinin meela wax uga soo qaadanaa qofna ha uga yeelin ma jirto qof siiya aqoonsigiisa caalamka aqoonsigaaga qofna ha siinin tusaale ahaan aqoonsigaaga waxa ku qoran magacaaga saddexan meesha ku dhalatay taariikhda dhalatay bisha dhalatay iyo sanadka dhalatay qofna ha siinin waayo qofkan waxa laga yaabaa warbixintooda guud inuu ka iibiyo dadka scammerska ee online-ka wax kaga maxalla wax ku dhaco tusaale ahaan aqoonsigaaga qof siisay waxa laga yaabaa inuu ku soo galo heshiis contract credit qofkan kaarka inuu qaato magacaaga ku qoran yahay laakiin adi bil walba guriga kugu soo dhacayso warqad ama emailka lagu soo diray lagu dhahayo waa inaad bixisaa lacagtii credit-ka ahayd ama warqad xasuusin lagu soo diray lagu dhahayo lacagtaadii loodo waa inaad bixisaa adidan ma kugu jirto lacag aadan qaadan ama waxaadan qaadanin aragtid okay tusaale aan ka soo qaad wuu ka dhuma aqoonsigaaga haddii aad dalka joogtid sida waxa leed adiga og laakiin haddii aad qurbaha joogtid booliska waa inaad tagtaa oo ku leedahay aqoonsigeygii saacad hebel ayaa igu wardambeysay dhuli cir meel uu jira ma garanayo waa hadhowti booliska warqada uu ku soo siinaya inaad soo diiwaan gelisay in aqoonsigaaga oo maxaa dhow lacala haddii uu qof helo oo qofkaas isticmaala aqoonsigaaga waxba uma tarayso waayo adi mar walba booliska ku wargelisay in aqoonsigaaga uu dhumay wixii markaa wargeliso boolisku wargeliso aqoonsigaaga inuu dhamaan baasaboorkaaga inuu dhumay kadib adi shaqada ma kulid waayo booliska ceeb u geysay shaqada booliska waxaan rajaynayaa saddexdan shay aan meeshaan kugu sheegay maanta inaad wax un aad ka fahamtid aad iska ilaalisid waayo ma fiicna aafada qofka in loo geysto aafadana ma fiicno qurbahan 100% maalin walba ay dhacdo daily waxaan rajaynayaa inaan wax un ka fahamtay hadaa kanaalkayga weli aan ku soo biir wax banaanka ayaa jooga microphone maas waxa laga yaabaa codka si fiican idaan u maqlin waa idin karaal gelinayaa taas kanaalkayga weli subscribe hadaa saaran subscribe saar
like ده share si dad kale u gaaraan ee u waantoobaan waxyaabaha meeshan ku soo sheegay waa maasantiin